kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka rajo qaran TV qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV ni waxa ka mid noqon doona warmurtiyeedka xasaasi oo laga soo saaray shirkii Nairobi ay ku yeesheen siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ku baaqay dhismaha golaha culimada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo oo safar degdeg ugu ambabaxay dalka Masar halka lagu maxkamadeynayo wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo la shaaciyay maamulka Puntland oo baaritaano dad lagu soo qabtay ka sameeyay magaalada Boosaaso salaad Roobdoon oo maanta laga tukaday degmada Afgoy amisom oo war ka soo saartay sawir aad looga hadalhayay baraha bulshada bajaajle loo dilay 5,000 oo shilin Soomaaliya iyo sida ay ku dhacday bambooyin iyo hub kale oo la qabtay iyo xildhibaan ku lug yeeshay majaajiliiste aan lahayn khibrad siyaasadeed oo ku guuleystay doorasho madaxweyne iyo wafdi ka socda Suudaan oo ku wajahan magaalada Washington intaasi waa qodobada gudur krone aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV haatan u diyaar garoobay inaad daawataan isagii oo fidsan taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 22 bisha Afraad sanada 2019 aynu ku bilownay waxa la soo gabagabeeyay isla markaana warmurtiyeed laga soo saaray shir ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku yeesheen xildhibaano ka tirsan labada aqal xisbiyo iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada aqal siyaasiyiinta madaxda xisbiyada ilays iyo wadajir waxa ay shirkooda ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban dhowr kuwaas oo intooda badan eedan loogu jeediyay madaxda dowladda qodobada ay dowladda ku eedeeyaan ayaa waxa kamid ah inay ku fashilantay amniga wada shaqeynta dowlad goboleedyada wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland iyagoo sidoo kale ku eedeeyay inay caburisay siyaasiyiinta ka aragti duwan kulankaas waxa ka qayb galay siyaasiyiin caan ka ah dalka Soomaaliya oo ay kamid ahayeen hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wasiirkii hore arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa Xildhibaan Cabdiqaadir Cusuble taliyihii hore Niza Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulurshe safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Maxamed Ali Americo iyo wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdinuur arintan ayaa waxa ay culays ku noqon kartaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo mudooyinkii ugu dambeeyay ka cabanayay weerarada kaga imaanaya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dhinaca kalena ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar oo ka qayb galay shirweynaha culimada Soomaaliyeed ayaa ku booriyay culimada inay aasaasaan golaha culimaa u diinka Soomaaliyeed khudbad uu shirkaasi ka jeediyay ayuu ka sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka in culimada weligeed ay door muhiim ku lahaayeen aasaaska horumarinta iyo hagida dhaqanka ummadda Soomaaliyeed haddana laga doonayo iyaga oo midaysan in ay kala shaqeeyaan dowladda dhismaha dowlad wanaaga iyo hirgelinta dastuur heshiis lagu yahay oo aasaas ay u tahay shareecada islaamka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in ay dalka ka jirto dhibaato amni oo salka ku haysa afkaar qaldan sida kaliya ee looga guuleysan karana ay tahay in culimada iyagoo wadajir ay doorkooda ka qaataan oo ummadda u sheegaan dhibaatada uu leeyahay fikirka xagjirnimada ku salaysan mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa ka dalbaday culimada Soomaaliyeed inay si wadajir uga hortagaan arrimaha shareecada ka hor imaanaya hormuudna ay u noqdaan horumarinta dalka iyo dib u heshiisiinta isagoo intaasi raaciyay inay muhiim tahay in culimo shacab iyo dowladba ay iska kaashadaan hirgelinta natiijo ka soo baxda shirweynaha culimada Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay furay shirweynaha culimada Soomaaliyeed oo looga hadlay kaalinta culimada Soomaaliyeed ee geedi u socodka amniga iyo dib u heshiisiinta dalka ayna ka soo qayb galeen culimaa u diinka Soomaaliyeed geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa waxa ay u amabaxeen magaalada Qaahira ee dalka Masar safarkan oo ah mid degdeg ah oo aan horey loo sii shaacinaya waxa garoonka diyaaradaha Dancadda magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo wafdigiisa ka sii sugayay xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya weli wax war kama aysan saarin safarka degdega ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu ambabaxay dalka Masar hayeeshee waxa dalkaasi uga sii horeeyay oo maalmahan ku sugnaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawaad dhinaca kalena weli waxa maxkamadda la soo taagin wariye Cabdimaalik Coldoon oo dhawaan ciidamada Somaliland ay ka soo xireen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer hayeeshee waxa tan la shaaciyay lagu maxkamadeyn doono wariyaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland ayaa go'aamiyay in dacwadda loo haysto wariye Cabdimaalik lagu qaado maxkamadda gobolka Maroodijeex sida uu sheegay garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil maxkamadda gobolka Maroodijeex oo dhawaan la horgeeyay Cabdimaalik ayaa diiday inay qaado dacwadda loo haysto iyadoo ku
dooday in lagu celiyo halkii laga soo qabtay ee ah magaalada Burco lana saaro maxkamadda magaaladaas. sidoo kale xeer ilaalinta iyo booliska Somaliland ayaa ugu dambeyn waxay go'aamiyeen in dacwadda loo heesto wariye Cabdimaalig Coldoon lagu qaado magaalada Hargeysa sabab la xiriira dhinaca amniga, taasi oo la filayay in dhawaan bilaabato. wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa horay xilligii Somaliland uu madaxweynaha kaga ah Axmed Maxamuud Siilaanyo la xiray iyadoo xukun lagu riday walow markii dambe lagu soo daayay cafis madaxweyne. geesta kalena Amisom ayaa ka jawaabtay sawir buuq badan ka abuuray baraha bulshada, taasi oo muujinaya qof ka tirsan Amisom oo cabiraya gabar loo diyaarinaya kamid noqoshada booliska Hirshabelle. sawirka ayaa gabar Soomaaliyeed oo kamid noqonaysa booliska Hirshabelle oo cabir xagga jirkeeda lagu sameeyay, waxaana Soomaalida aad ugu falanqeeyeen barta Facebooka. taliska Amisom ayaa sheegay in gabadha Soomaaliyeed waxa cabiraya inay tahay gabar kale oo u dhalatay dalka Zimbabwe, balse dadka Soomaaliyeed ay u maleeyaan inuu qof raga yahay. qoraal la soo dhigay barta Twitterka ee Amisom ayaa lagu yiri fadlan ogaada sarkaalka booliska ee Amisom ee cabirka ka qaaday gabadha loo qorayo waa sarkaal dumar oo ka tirsan kooxda booliska Zimbabwe ka socda. Amisom waxay tixgelinaysaa ilaalinaysa dhaqanka Soomaaliyeed weligeedna uma xil saarto sarkaal lab rag ah in uu taabto haween Soomaaliyeed. ciidanka midowga Afrika ee Amisom ayaa tababar siiya ciidanka booliska iyo maamul goboleedyada dalka qaarkood. arrintan ayaa qabsatay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay, taasi oo keentay in ugu dambeyn Amisom ay ka hadasho. geesta kalena Maxamed Ibrahim Abuukar oo ah wada mooto bajaaj ayaa xalay askari ka tirsan ciidanka dowladda waxa uu ku dilay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. qoyska marxuum Maxamed ayaa sheegay in askariga wiilkooda ku dilay bar control oo ku taala deegaanka Buulamareer uuna u dilay 5,000 oo shilin Soomaaliya. askarigii dilay wiilkooda ayay sheegeen inuu u baxsaday dhanka deegaanka Shalambood, ayna doonayaan in loo soo qabto cadaaladda la horkeeno. dalaalka loo geysto wadayaasha mooto bajaajta ayaa soo batay muddooyinkii ugu dambeeyay, mana jirto cid loo qabtay dilalkooda. markii hore dilalka bajaajyada ayaa ku ekaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, balse waxaa hadda muuqanaysa inay noqotay mid federaal ah oo meel kasta lagu ugaarsanayo. bajaajyada Muqdisho ayaa maalmo ka hor gadood sameeyay kadib markii laga dilay darawal, waxayna taas keentay in bajaajyada loo ogolaaday inay isaga gudbaan jidadka xiran ee Muqdisho kadib markii ay sheegeen inaysan canshuur bixin doonin haddii jidadka loo diido. dhinaca kalena ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in magaalada Muqdisho ku qabteen hub ay ku jiraan waxyaabaha qarxa oo loo waday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubkan oo ay ku jiraan bambooyin gacanta laga tuuro loo waday mas'uul xasaanad leh oo ka tirsan golaha shacabka, inkastoo aysan sheegin magaciisa. ciidanka amniga ayaa gacanta ku dhigay hub tiro badan oo la doonayay in loo gudbiyo mid kamid ah mas'uuliyiinta xasaanada leh oo ka tirsan golaha shacabka. hubka waxaa kamid ah bamb gacmeedyo ayaa lagu yiri qoraal wasaaradda ka soo baxay. sida qoraalka ku xusan, mas'uulka hubkan loo waday ayaa isku difaacay inuu doonayo ammaankiisa inuu ku ilaaliyo, balse wasaaradda amniga ayaa isweydiisay sida ay suurtagal ku tahay in waxyaabaha qarxa loogu adeegsado amni sugid. mas'uulka loo waday hubkan doodiisu waxay u dhigneed dadqabkayga ayaan ku dhowraya bamb gacmeed iyo walxaha qarxa, nabadgelyo ma dhowraan ee iyaga ayaa lidi ku ah, waxaana loogu talagalay dagaalgelid iyo gumaadka goobo la geli waayey. ee maxay tahay baahida bamb gacmeed loo qabi karo iyo doorka ay ka qaadan karto inaad isdhoorto ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka oo lasoo dhigay bogga wasaaradda amniga ay ku leedahay barta Facebook. geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa shir gudoomiye kulan gaar ah oo ay golaha jaamacadda Carabta heer wasiir arrimaha dibadeed oo ay codsatay Falastiin laguna qabtay xarunta jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahire ka dhacay, iyadoo uu ka soo qayb galay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in mowqifka Soomaaliya ee arrinta Falastiin ay furo u tahay deganaanshaha bariga Afrika, isagoo cadeeyay taageerada Soomaaliya ee sharciyada Falastiin iyo xaqa shacabka Falastiin ee ah inay sameystaan dowlad madax bannaan oo u taagan xuduudii 1967 ciidamadeeduna tahay Qudusta Bari. dhinaca kalena salaad Coldoon ayaa lagu tukaday fagaaro ku yaala magaalada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose. dad aad u badan oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Afgooye iyo deegaano kale oo hoostaga ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha Afgooye si ay Allah u baryaan. salaada kadib ayaa qaar kamid ah culimada ugu caansan degmada Afgooye waxay halkaasi ka jeediyeen muxaadarooyin dhaadheer iyagoo dadka kula dardaarmay inay iscaafiyaan isla markaana laga fogaado xalaalaysiga dhiigga islaamka. waxayna dadka ku booriyeen in sanad kasta wadajir loo tukado salaadan oo kale si bay yiraahdeen uu dalka kaga badbaado colaadaha iyo abaaraha ku soo laalaabtay. xilligan ayaa qaybo badan oo gobolada dalka ka tirsan waxaa ka taagan abaaro saameysay dadka iyo dunyada, iyadoo la soo sheegay qaar kamid ah gobolada Puntland oo uu ka curtay roobka guga. geesta kalena taliyaha booliska qaybta gobolka Bari ee maamulka Puntland Gaashaale Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa waxa uu kaga hadlay qorshaha lagu sugayaa amniga magaalada Boosaaso iyo howlgallada
dad lagu soo qabqabtay oo laga sameeyay Boosaaso. Taliyaha ayaa sheegay baaritaanadii ay ka sameeyeen magaaladaasi ay ku soo qabteen dad lagu tuunsan yahay falkii amni darrada ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay degmadaasi. Dadka la soo qabtay ayuu sheegay baaritaanada ay ku wadaan ayna warbaahinta u soo bandhigi doonaan. Howlgallada ayuu sheegay taliyaha inay sii wadi doonaan isla markaana ay ka bilaabi doonaan deegaano hor leh oo ka tirsan maamulka Puntland. Dhinaca kalena dadka reer Ukraine ayaa maanta codadkooda ka dhibtay doorashada madaxtinimo taasi oo uu ku guuleystay in majaajiliista oo aanan lahayn khibrad siyaasadeed. Natiijooyinka hordhaca ayaa muujinaya in Volodymyr Zelensky oo horey u jiray musalsal TV-ga laga daawanayo oo ku matalaya madaxweyne Malaawal oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Petro Poroshenko laga guuleystay. Codadka doorashada wareegga labaad ee la tiriyay dadka codadkooda dhibtay 75% waxay siiyeen Mr. Volodymyr. Kalsoonida ay ku qabeen shacabka Mr. Poroshenko ayaa hoos u dhacday kadib markii uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto musuqmaasuqa iyo heerka nolosha waddanka oo aan horumarsanayn. Labadani musharax ayaa waxaa dhex maray jimcihii dood si toos ah looga daawanayay TV-ga isla markaana ka dhacday garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala magaalada Kiev. Waxayna iswadaarsadeen erayo aflagaado iyo eedeymo isu jeedinayeen iyagoo ka sinaa ballanqaad ay ku ballanqaadayaan in Ukraine ay ku hayn doonaan hayndaabka reer galbeedka. ugu dambeyntiina ujeedada booqashada wafdiga Suudaan ee ku wajahan magaalada Washington ayaa lagu sheegay in taasidii Mareykanka loogu qancin lahaa in Suudaan laga saaro liiska dalalka argagixisada taageera. Hogaamiyaha militariga dalka Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan ayaa wareysigiisii ugu horeeyay la yeeshay waxa uu ku sheegay in wafdiga uu bixi doono toddobaadka dambe. al-Burhan ayaa sidaas u sheegay telefishinka dowladda Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 1993 ku dartay dalka Suudaan liiska dalalka taageera argagixisada iyadoo arrintaasi lagu eedeeyay madaxweynihii talada laga qaaday Umar Xasan al-Bashir. Warkii aad ka daawanayseen Rajo Qaran TV aqyari wanaaginta si aad u heshaad buu warar ee ku soo kordhagayga Soomaalida iyo daafaca caalamka subscribe saaro Rajo Qaran TV.